aqoon darrada fiqi Somaliland aqoon sanayso waan garanaya anigu oo Soomaaliyana halka ka baxal warnayo ali eegada waxa dhacday number 1 ninkii fiqi ahaa horta dhibaataysa iskugu filan hana ka caroonaan ku roon maan hore idin sheegay warqadan hadaba uu soo dhigay 16 June kamaan maqnayna waan arkay laakiin waxaan doonay inaan ku dhigo oo aan cadeymo far badan sida imika anigu istaan soo fariisto bugaag dhan eeg fiqi isagu wuxuu doonaya inuu dadka dhaadhiciyo ingiriisigii aanu fahansanayn fiqi jaahil waxa ay ku kaliftay inuu jantan bayr galo hadaba waxa dhacday aan doonay inaan difaansiyo waxa weey warqadan horta waa warqad la lahaa Tunisia inay lacag qaadatay baan filaya UK-na kulli inta badan iyadu dokumentiyadu maadaama ay dhinaceeda ka dhamaadeen hawsheeda way dhimeysay iyo Talyaaniga oo isaguna faashistiska ahaayo aan dan habaabi iyo dagaalkii labaad adduunka qaacdi soo gaadhay ay haysato ayaa warqadan horta qoray warqadan waxa lagu dalbanayaa in United Nation gaar ahaan Security Council ambaba in halkaasi horta lagu daro qaranka cusub ee la yiraahdo Somali Republic ayuu horta magacii laakiin Soomaaliya ku qoreen kadibna draafkii dhamaaba wax maran buu ahaa eekada imika labadii dhinac taba dhinac baa la hayaa cadeymihiisii oo meesha la geeyay cadeymaha qaybtii kale lama hayo ilaa imkana Talyaanigu muusinin Soomaaliya xornimo sidii uu uga tagay Eritrea oo kalena Soomaaliya uga tagay oo imka dad ku tiraado Eritrea iyo ka qaato xornimada Ethiopia ka qaato baa lagu oranaya hadda baaritaan aad ku sameeyso hadaba waxaan doonayaa inaan isla faahno labada dhacdo waxa weey qoraalka halka kugu qoran qaybta huruuda ah waxa ku qoran oo la leeyahay Somaliland inay macnaha jaarnimo ku noolaato wadamada jaarkeeda ah ee qarankan macnaha la yiraahdo Somali Republic baan u jeedaa inuu macnaha la noqdo saaxiibo wadamada jaarkiisa ah labada wadan ee madax banaan leh waxyaabaha adigu waa tahniyad hadaba maxaa xagga dambe laga sii raaciyay wasiirkii arrimaha dibadda ee macnaha xilligaas ee Mareykanka UK baan u jeedaa ayaa intuu warqadii oo dhameystiran qoray farta ka saaray aadan cadde 1 July eekada macnaha qoladii kalena dhinacooda wax aliyo waxay soo dhameystireen horta ma jirin ilaa iyo imkana warqado ay ku wareejiyeen wasiirkoodii arrimaha dibadda madaxweynahoodii hawlahoodii midna ma jirto eekadaba waxa la isla tagayaa laakiin hadana constitution-kii macnaha in dastuurkii hadana loo codeeyo hawlihii iyo israac iyo wixii taana waa tii Somaliland ka diidaysa ee dhinaceeda aan lagu codeynin arinta inaan ka daba tagaa dooniya Cabdi Ismaaciil Samtar ka sheekay wadaado mar walba waxa loo codeeyay dastuur ay Soomaali xor ah iyadoo codeyso waxa kuma jiraan hadii loo codeeyay maxaa loo dili waayay ragii lagu qabtay markay Somaliland soo celiyeen hawsheeda ee aqoonsigeeda ee Cabdilaahi Koonka iyo lahaa Cawil ilaahay caafimaadka ha u barakeeyo iyo Xasan Kaydi maxaa loo dili waayay raggaas in la diladii sababtoo ah waxay sameeyeen khiyaano qaran marka waxa la waayay wax la isku biiray waa tilguuri Ingiriis waxta waxa jirta warqado kale oo kaga codsanaya Talyaanigu ku leeyahay Talyaaniyow anigu waaniga siiyay wuxuudii way haystaan si loo dhameystiro hawlaha inta dhiman keen warqadii Soomaaliya marka wax jawaaba warqaduhoodan lama hayo oo Talyaanigu uga jawaabay geesta kalena waxa soo caday midna ma jiro hadaba Somali Republic magacii la doonay buu hayn la bixiyo Soomaaliyana halkan ku qoran eekada faan faashista way Talyaanigu iyo waxbu doonay inuu hoos geliyo sababtoo ah waxba mu hayn raggan marka horta hawlo badan oo waaweyn oo noocaas oo kala ayaa jira marka horta fiqi aqoon darradiisu Somaliland furay u noqonaysa aniga taa ay ka qora